wargeyska The Standard Media ayaa qoray inay dukumiintiyo ay muujinayaan inay maamulayaasha Kenya ay doorbidayeen in intaan dacwadaas loo gudbin maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ka hor in ay mujtamaca bariga Afrika ay gacan ka geystaan muranka xuduud badeedkaas u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kadibna loo soo gudbiyo ururka midowga Afrika. dowladda Kenya waxa ay su'aal ka keentay awoodda maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku xallin karto muranka xuduud badeedka ee ay isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya iyo sababaha ay Soomaaliya u doonaynin in ay ururka midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD ay xalliyaan muranka xuduud badeedka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. dukumiintigaas waxaa kaloo lagu xusay inay dowladda Kenya ay ku eedeynayso dowladda Soomaaliya inaysan wax dareen ah aysan ka lahayn qaabka xalinta muranada ee qaaradda Afrika, waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya. dhinaca kale dowladda Kenya waxa ay sheegtay in ay Soomaaliya ay ciyaareyso nidaamka sharciga ee Yurub iyada oo ay Soomaaliya ay diiday dhexdhexaadinta iyo dib u heshiisiinta ee qaabka dhaqanka Afrikaanka ah ee xalinta muranada iyo waxa ay Soomaaliya u doorbidayso maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. bilowga bishii hore labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta waxa ay yeesheen kulan isku day ah oo lagu doonayay in lagu xalliyo muranka xuduud badeedka ee ka dhexeeya iyadoo kulankaas oo albaabada u xirnaa isla markaana uu markaasi dhexdhexaadinayay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed walow marka dambe kulanku uu fashilmay. maxamed cabdi xasan iidle idaacadda telefishinka dalsan muqdisho.